abadiyo bulshadii wacnaydiyo barbaarti kacaankiyo bahdi reerafkooyaay barinaye afkooya news kala soco wararka xaqiiqda aad ayaan baahi ugu qabnaa baahi weyn aan u qabnaa deegaanka oo dhan degmada oo dhan waxaan isleenahay ciidamada dawladda iyo kuwa Amazon meelo ka baahi yar ayaa amnigooda la sugaa waa la sugi karaa amnigooda haddii la iskaashado ciidanka Amazon iyo kuwa Soomaalida SNA waxaan aaminsanahay 100% garoonkan amnigiisa in la sugi karo oo kuwada filanahay la qaban karo shaqadaas ayaan aaminsanahay waxaan ka codsanaynaa gudoomiyayaal aadaan ugu baahanahay waa badii dad badan sidaan ognahay maalin kasta ku dhinta xilligan badda waa kacsan tahay in maaragta baahi weyn oo caadi ahayn aan u qabno garoonkan waxaan rabnaa wax weyn oo ma baahna wax yar u baahan yahay in loo dayactiro baahida shacabka la tixgeliyo baahida maaragtay maamulka ciidamada dhammaan la tixgeliyo arrintaas wax yar ka dhiman taaganahay isticmaalkiisu 40 sano ilaa 50 sano ka hor ayaa garoonkan lagu dhaqmi jiray alxamdulillah garoonku waa sidiis inta badan maanta aan dhex taaganahay waa samaysan yahay waa garoon u baahan dayactir yar u baahan waxaan soo jeedinaynaa ama codsanaynaa garoonkan sida u dhaqsiyaha badan inay dawladdu soo eegto timaado ay hoolna ka gasho si degmada marka ay u hesho garoon isla markaasayto ay shacabka ama mas'uuliyiinta dawladda iska kala goy karaan ay ku soo degi karaan si loo helo garoonkan waxaan qiyaasaynaa garoon weyn inuu yahay ugu yaraan 2 kilomitir iyo aba finas yahay ayaan aragtay maxaa la yiraahdaa aan aaminsanahay marka garoonkan waxa uu baahan yahay dayactir yar ayaa uu baahan yahay garoonkan waa jaay waa dhul adeeg waa dhul maxaa la yiraahdaa ay u samaysan garoon ahaan dhulkan waa dhul diyaaradaha fudfudud iyo kuwa culus ay ku soo degi karaan sidii nolo sheegay waagi hore diyaaradaha waaweyn ee ruushka ayaa isticmaali jiray runtii garoonkan maanta aan taaganahay waxaan u nimid indhindheen ama u kurgal inuu garoonkan shaqay karo in kale inaan ogaano garoonkan maanta waxaan keenay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nursiidi mudane gudoomiye garoonkan waa dujeeda wuxuu u baahan yahay shaqay marka waxaan leeyahay maxaa garoonkan waxa la sameeyay 1974 abaartii daba dheer oo Soomaaliya ku habsatay gabi ahaanba waxa la keenay dawadaagihii dadkii la jiray oo Ceel Axmed la soo dejiyay oo Kutwari la soo dejiyay oo Sabla la soo dejiyay oo meelo badan la dejiyay dawadaagii diyaaradihii maxaa ku raada waaweyn hangariska oo ruushka ayaa dadkii keeni jiray maal wadbihii arigii maxaa ku raada qalabkii dadkii kulli soo qaadi jiray garoonkan garoon hadda diyaarsan way waxa la kara garoon diyaarsan way waa il duufni shacabka ka raali gelinayna shacabka deegaanka degmada markii deegaanka hoosii baa shalambood waa raali gelinayna hadaan nahay dawladda maxaa ku raada koonfur galbeed iyo dawladda federaalkaba sababtoo garoonkan anagu maxaa ku raada culeys ma saari maanta ka hor marka gudoomiyaha degmada loo sheegay iyo taliyaha iyo deegaanka maamulka deegaanka shalambood waxa yiraahdaa maxaa ku raada garoon aan u baahnayn waxba anaga maamulka gobolka hadaan nahay laga bilaabo maanta waxaan ballan qaadayaa anoo ku hadlay afka dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalkaba in garoonka saacadan laga bilaabo cali garoob cali garoob baa ka yar baxay oo gaagaaban ina cali garoobkaas maxaa ku rafanki ku baxay gobolka inuu keeni doono si degdeg ah gudoomiye maqle marka salaaliga marka waxaan rajaynayaa garoon si gudoomiyaha degmada maxaa ku raada marka u sheegay Cabdullaahi Cali Axmed Waafow garoon u baahan usbuucii bilooyin u baahan ma cali garoobkaas hadii laga jaro ruler bahal yiraahdo maxaa ku raada simaysa iyo dhowr kaari ko maxaa ku raada jaaye maamulka gobolka bixinay anaga ballan qaadnay jeebkeena waa marka garoonkaas saacadan laga bilaabo heedaha caalamka ku gargaarka bixiya kuwa dadka caawiya dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka ganacsatada ka soo jeeda gobol Shabeellaha Hoose waxaan ku boorinaynaa inay ka soo degi karaan
iyo shirkadda maxaa civil aviation ee Soomaaliya shirkadda maxaa ku raada dayuuradaha duulimaadka saaxiibkay Xasan Xaanshi waxaan ka rajeynaa insha Allah diyaaradaha inuu soo نبد دورا نلل بالوشوا نبد دورا نبارك كولا نبد دورا دول كنوروا نبد دورا أول كنافوا نافوا أول كنافوا نافوا أول كنافوا نبد دورا نلل بالوشوا نبد دورا نبارك كولا نبد دورا دول كنوروا نبد